waxaan caddaynayaa anigoo sarkaal ciidan ah uu awoowahay ahaa oo aqalkay ahaa saaxiibkay ahaa inuu keligiisa ahaa sidaan howlgalkaasi uu ku fulay ciddii fulisana dee waxaanu martuuga nahay maamulka waa ka tirsannahay anigu waxaan ahay Mustafa Siciid Toortaliye ururka Kotoriya Afraad gaashaanle sare taliyaha ururka Kotoriya Afraad daraawiishta qaybta 9aad degmada Ceelbo ahna taliyaha ciidanka ururka Hillaac ee Afruf howlgalkii Hillaac oo ciidankii ka howlgalay baan Almadow oo ciidanka Afruf baan halkaa ku xukumaa ciidanka degmada Ceelbo ana xukumo ururka Kotoriya Afraad الله ونحرسته عاقلك جنة الفردوس الله جيو أو هيبوها عاقلك يجيبوها صاحبك يوارجح أنا قبل صاصو يغير عاقلك الله ونحرسته كودي سبتمبر أنا استاف كي سجن عشان وعمرت قدوميها برلمانك قراج وعلتي لبعد سبتمبر فيت كذينا أنا جاي سجن حلمانك فدرالك فيصل وهاي waxaan la kulannay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni maalintii 3aad oo 4aad ahayd September wuxuu la wacqada loo sameeyay Faysal wahaay maalintii Khamiista April September ay afar hayna aqalku ka soo baxo Baranbuy safarkii Baran wuxuu joogay Jimcihii iyo Sabtidii maalintii hadda ahayd ee bishii 7 ahaydna wuu ka baxay wuxuu baxay degmada Ceelbuna wuu deganaa waxaanu cadaynaynaa anigu taliya ururkii halkaa joogay baan ahay ciidanka booliska waa ugu yimaadeen hawshu markay dhacday 13 bisha September bacdal duhur buu ka soo baxay markuu duhur soo tukaday abaarkoodii BM kaligiisu ahaa dadkii uu la kulmay ninkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa Ismaaciil Axmed Cabdi Nuur Cawl xarada xarta Ceelbo ku soo dhaafay isagoo kaligiisu gaarigiisa wata telefoonkiisa ku hadlaya bila iskuma ogeyn ummadu kuma ogeyn waanka qaranka dhan hogaamiye oo ahaa waanka madaxweynaha noo geeyay gudoomiyaha baarlamaanka anagoo saraakiila noo hogaaminayay oo odayaashii uu ka mid ahaa shirka Boosaaso ka qayb galay saasuu naga soo ambaxay haddii aanu meeshii nimi aniga laba gaariyo maqa wax iga soo reeyay soolka carmanaa joogay markaa uu dhacday waa nimi goobtii diyaaradaas waa laga warbixiyay sidii u dishay 3 gataal bay ku dhufatay halkaasoo ku nafbaxay gaarigaas laxabad buu noqday wax yar oo lafaa baa laga helay inta durbaanka isku shilmay kaligiisuna ahaa waana caddahay cid loo doonayana ma jirto Soomaalidu waxay wadaa ku tirkuteen remembrance wuxuu halku ninka qaadayo hebel buu sitay aniga ciidanka booliska ugu yimid taliya qaybeedka ugu yimid ciidanku watay waa arkay magaaladu tagay degmada wixii laga sheekeeyay buu soo baaray anigu sidii baan u joogay CID bay ugu timi hogaanka CID-da taliya CID-da shanta gobol DNA-gi waa qaadnay sidaas hawshaas ku dhamaatay waana arkaysaan dixro warsan gali sida ay u gilgilatay nabadoonnadii baan xukumayo ciidamadii jidaha ku jiray soo rogay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun saddexaadii mar afraad nafteeda lagu tacsideeyay cid kale uga tacsideeyay annaga soo tacsideeyna caaqilku member weyn buu ka ahaa oo xumina waxaan caddaynayaa anigoo sarkaal ciidan ah uu awoowahay ahaa oo aqalkay ahaa saaxiibkay ahaa inuu keligiisa ahaa sidaan howlgalkaasi uu ku fulay ciddii fulisana dee waxaanu martuuga nahay maamulka waa ka tirsannahay laga rabaa dowladda Puntland dadka iyada madax ka ah iyada maamul u ah inay cadayso shacabkuna uu kacsan yahay dadka in la jahayo mas'uuliyadda uu baa loo ataagay wax kale ma jiraan waana sida saasaan caddaynaya